السلام عليكم. هبين wanaagsan ama maalin wanaagsan kaydin tahayba aniga hawlaalkan Cabdimajid muuqaalkana maanta waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena ugu magac darnay dhacdooyinka toddobaadka oo in maalinta Sabtida soo deyn doono kagana hadli doono dhacdooyinkii ugu waaweyn toddobaadkan kuwaas oo ku dhex baahay social media ku soo dhawow. dhacdada ugu horeysa waa hooyo ku tuuraysa ilmaheeda biyo. dhacdadan waa mid ka cadhaysisay dad badan. bilowga dhacdadan waa hooyo ku tuuraysa biyo ilmaheedii yaraa oo da'diisa lagu qiyaasay 8 bilood oo kaliya kadib markii ay ku tuurtay ilmaheedan yar iyadoo ka duubaysa muuqaalkaas ay soo dhigtay barta TikTok-ga. muuqaalkaas oo gaaray daawashadiisa 5 milyan oo qof iyo 128,000 oo comment ama faallo bixin ah. arrinkaas oo ay gabadhan xitaa ku galabsatay in loo handado ama loo hanjabo. intaa kadib waxay hooyadii ilmaha dib u soo duubtay muuqaal kale oo ay ku sheegayso in ay soo maray tijaabo hore oo bil ah. muuqaalkana aanu ahayn kii ugu horeeyay ee ay ku tuurayso ilmaheeda biyo, balse uu soo maray tijaabooyin kuwan ka horeeyay taas oo ay ku tababaraysay ilmaheeda yar. arrinkaas oo ay godan lahayd inuu isbadbaadin karo haddii uu ku dhaco biyo ilmahan yari iyadoo aan arkin ama maqan. dhacdada labaad waa mid la yaab leh oo muuqaal ku dhex baahay barta Facebook-ga soona jeetay indhaha caalamka. waa nin lagu magacaabo Dave Williamson oo ku noolaa dalka Mareykanka. kadib ninkan isagoo ag jooga xeebaha ka mid ah xeebaha magaaladii uu ku noolaa ayaa waxay indhihiisu qabteen kalluunka ama malayga loo yaqaan libax badeedka. kalluunkaas oo ay afka kaga jirta ama afkiisa kaga jirta ama la il daran birta yar ee lagu dabta kalluunka una baahan caawimo ama gargaar. intaa kadib ninkii Dave ahaa degdeg ayuu galay badii wuxuuna afka u kala qaaday kalluunkii oo ka soo saaray birtii sidaasna uu ku sii daayay oo uu ku fasaxay. dhacdada saddexaad ee ugu dambaysa ninkan idiin muuqda waxaa lagu magacaabaa Ben Miles. waxa uu ku nool yahay dalka Spain. waxaa la guddoonsiiyey shahaadada ama jaaysada lagu magacaabo World Guinness Record kadib markii uu ku dul socday baaskiil kan idiin muuqda muddo dhan 297 saacadood oo aan kala go' lahayn amaba xidhiidh ah. 297 saacadood oo ka badanaya muddo dhan 12 maalmood. waxaana uu si dheeraa ninkan inuu saacadii walba ku soconayay xawaare ah 20 kiiloomitir. 5 saacadoodba waxa uu lahaa break yar ama nasiino yar oo gaadhaysa 20 daqiiqo. haddii aanu xisaabino nasiinaha uu maalinkii ninkan helayay waxay noqonaysaa nasiino gaadhaysa 1 saac iyo badh. ugu dambeyntii ninkan waxaa lagu qiyaasay intii uu ku dul socday ama uu ku dul saarnaa baaskiilkan muddo dhan 12 maalmood iyo 9 saac. muuqaalkana maanta taasi inuu eegyahay. intaanu ku kulmayna muuqaalka xiga waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.